هلا وقرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سaaxiibada codsateen hadda waxaa bilaabay player cusub player career waa bilaabay videogana nooga hor insha allahu tacaala marka saa ay dhahdeen koox yar ka bilaabay dhahdeen koox yar hadda ka bilaabay adii like Southampton iyo Wolves meelahaas camal hadda Southampton aan ka bilaabay waa 22 jir Talyaani ah hadda koox kor u sii soconaa xoogaa ilaa adiga like kooxaha weyn ka gaarayo meelahaas camal fiirnayna marka inta waxaa laga yaabaa wax badan inaan joognaa macquul adiga 1 sano 2 sano ilaa iyo 3 sano xitaa inaan joognaa macquul sababtoo ah inay player qaar soo sameeyaan adiga kooxaha ay joogaan ilaa ay xoogaa ay joogaan marka hadda almiitadan waxayna qaadanay waxa waaye diyaaran aan hadda baante soo hadda kulanka ugu horeeyay inaan safta business ugu yaabo kulanka ugu horeeyay waxa waaye waa bilow ma jirto inaa kooxda aan bilow ku soo noqdo waqti badan ay qaadanay horta kulanka ugu horeeyay waa kana waxa bixinaa West Ham hal ciyaarta maaraysa daqiiqadii 80 liiga ay keenay 10 daqiiqo haystaan baande marka 10 daqiiqo Premier League debut-kaaga wax uu maanta ku keeni kartid malaha sababtoo ah player aniga weyn 10 daqiiqo wax ku keenaa famino marka anigu ma maleynaa wallahi inaan keen of course weerar waa helay at least like weerarkan uu kamid yahay daqiiqadii 81 waa cunay marka waxa macnaha waa iga muuqataa inaan u baahanaa gool zaidna u baahanaa gool kulanka ugu horeeyay dhaliyo farxad ayaa leed weerarkan waa kana daqiiqadii ugu dambeeyay laakiin Ronaldo qaban faanti inta meelaha warwareegsanay kubadda waliga xoog tabar meel kuma 69 meelaha saamleen awoodeed xoogna meel kuma hay baande ina gambina waa rabaa marka Soomaaliya waa iska taqaanaa kubadda baasne ciyaarta kuwaasan ugu soo dhamaatay hal waxa waaye waxa iska bedelna malahan ibro wallahi tabara inaan waxna aqaan macquul xitaa oo nala buriyo ama kooxda bedelka 10 daqiiqada dheeroon xitaa ina marka dambe heli weyna macquul baande wallahi 10 daqiiqada Southampton keeli waayo riideed waxay taamaareen Liverpool noo dheelo baande Anfield ka dheera Champions League macquul inay qaweysa taas la yaaba kulankan wixii Southampton kulanka ma ku soo bilowday kulanka sababta ugu soo bilowday waxay tahay yarka weerarka noo dheelay aan dhaawacnay baande marka ana weerarka dheelo ana noobe marka bedelkiisa ana galay Armstrong dhaawac marka bedelkiisa ana galada wali ku soo bilaw kulankan waxa waaye kulanka markii ay ismu jara sababtoo daqiiqado badan haysta iyadoo saanayta wallahi inay bedela macquul tabaraha laakiin haduu hal gool la leextaa maanayd inuu bedelo daafac galaa laga yaabaa mugta marka ana gool lana la midada kale xulka Talyaaniga waxa waaye weerar markii la dhaw dad badan iska maaka joogo bal waxa joogo dad badan aawid Bruce Autorita subhanallah warlaastar caadi isku xiro wallahi bismillah kubadna horta waa shaqeystay ciyaartan xoogaa yar wax shaqeeyay baande xoogaa waa gagambi laakiin dibka jira wuxuu yahay xoog tabar meel kuma hayn ibr aanan caadi noo la qaadana kubad walba aan sameeyno wax walba waa xool isku sheeganayo ilaa aad ma fahmi wallahi weerarkan kana daqiiqadii 5-aad idina waxa waaye laakiin waa khasaarinay baantaadi marka waa finishing meel kuma hayno awood meel kuma hayno wax ahayno ilaahay unta malaan falab caadana tabaraan wax naqsiyan wallahi kambi koos ku soo dhamaatay kambi go idina la weerar la qaado bis goosgoosada waxa ka soo qaatay la weerar labaad inta kale kubadda maanta waa la iska dabacinaa fahmino waa kana second half kubadda banaanka u dhig offside laakiin oh my god kan wax oo ogyahay ilaa unta malaha wallahi bismillah rabbi kan ibr wallahi saana taab Liverpool na dhila ugu rabo wallahi bila dhiba qabnaa wallahi kubadda qasaari baaska soo qasaari goolkii koowaad aan galiyay hadana deesaan ay ku dhamaanto soo dhamaad tabaraha ratingina ibra tabaraha inuu bedelaan macquul wallahi bila kubadda ana qasaari kaban baaska sanaan gadaal soo celiyay la ilaha illa allah way dhamaat wallahi tabaraha ma go'arkay asaas u qasaarinayo kubadda ibra iga soo baxay wallahi wax meelaha siyaada leedahay waxa qabta malahan kunti 2 daqiiqo dheelay gool ma sameeyna assist ma sameeyna laba shood un targada aridibis bedelida ibra way xirta hal ku soo maatagaas kulankan wixii kulan Carabao Cup ahaay Plymouth agaalo bixayeen ma bali ku soo dar shaxdina ma bali ku soo darinba way ugu boodeen marka shaxad maadaama lagu soo darin 3 xil ku badiyeen Armstrong 3 gool lali asaas ku badiyeen kulanka ka maqnaa badana laakiin kulanka aad joogo qasaar dhar loo galiyay wallahi maade
kulankan kale marka cunugan waxay ugu soo bedeleen mid oo magaciisa dheer Afrikaanka ma aqaani ay ugu soo bedeleen kulankan marka waxa laga rabaa hal gool ina micnaha like ama assist ama waxun aan dhiibo hal goolna aan dhaliyo goolina caabiya laga rabaa bande kulankan waa ina is adkeena waa isla markii hore weerar ka soo qaadanay waa kaas laakiin finishing-kayga ay saxaayay la ilaaha illa allah finishing ya isiinayo ibir wallahi billah kubadda goosha xaggii jirtay xagga aadi indhool ma naqtay golaata musku dhiba xitaari kubadda kale way yaqaana taqadil xay sagaalaad weerar kale waa kana asna laakiin kubadda laakiin waa dil mar kubadda marka kooda geeskan la soo aadaa dilib kubadda wallahi la ilaaha illa allah waa qasaari weerarkan waa kana waa xawaatan hadii aan dhali weyn bis waa noo dhamaatay dhali oo golaya qabto wallahi بدل هذا اللي يمكن بس مركب بدل هورلي بدل أملنا والله بلا تلا أنا أقول لك نقص let's go أسيستيكو ضاع سمعني let's go خلاص أسيستاسكو سمعني طلعت ضد خمسة ساعة على أسيستاس سمعني عيوننا اللي ما خلا فران حصل الله أملنا مول مركب أي أسيستيكو قوات ساكو like you know معناها like استهمتن أو بلاونه بقوشين وقولي أكله قليل لناي das aan weyn assistant aid Brentford ka imaatay insha Allah goolka la wareejinaa tabaro farxsan wallahi waxa waay waxa la dhaaf Fran Beltran la oga marka wareejinaa marka ina aan goosheeda kala heli kara hadana marka waxa kaliya ku fiicana waxay taa SBT ya 9 aan day sa ugu orday dadkan ma soo qaban karaan xitaa wallahi finishing ilaa mid sax la kari let's go alxamdulillah ya al taas doocuni lahaaya wallahi waa dilaa wallahi billah hawa had episode ugu horeeymaano horaan ka fidhiisi laayno shaqo ma kulan banoniga meelis galaas ka aad waxa kale ku fiican xad orodka zaid orda adin gaabinti iyo waxoogaayar waa qofku ku gaabiyan ord badan yaa moogtaa qof gaaban oo ma arkaysid adii oo macna ordi karin ma arkaysid wallahi finishing ta goolahay ku sii dhaad ka baran waxaan nasiib wax kala dhigi kara ma la nasiib dhigi kara gool aneto bravo farxay ma sha Allah laakiin dibka jira wuxuu yahay aniga hadaa dhaleno gadaala waxay u furan tahay aan ku dhahay sidii shabaqo kala fahanti waana galali daqiiqad badan ma ku soo wareegaya 3 daqiiqad 2 daqiiqad ma ku soo wareegtay horaan galaliino cunuga maxaa la dhahay maweb maxaa la dhahay Mumbemba maala war Soomaaliyan dhihine Soomaali uga kaas Afrikaanta magac xuma bismillaahir rahmaanir rahiim saas ku soo dhamaatay 2-1 marka waa 2 daqiiqad u dhaxays walaa gooshi hadii aniga aan u dhalino iyakiini wax u raacanaya malahano laakiin kubad si fiican u raacanayaano oo ma gaaf fanaanta ma keero wallahi quruxda fanaanta ma soo gataabaniyo afmaan qurux badan Southampton aweeyed fanaan qurux badan waaba marka waxa waaye caawin iyo gool kulankan saddexaad adeelino waxaan soo marnay kulan gadaan la walkeenay kulan oo wax walba man of the match qaadan xitaa rafaada badan soo marnay adiga ma fahanti insha Allah taala hadda man of the match oo aan Southampton ku qaadano xarajeen insha Allah maalmoodna inaan kii ku qaato Liverpool so insha Allah episode kan inta sano kana kulamada process maayaan insha Allah taala videoan isbuuci 3 maalin ama 3 mar amal rawa inaan soo dhigo 3 maalmood insha Allah xarajina badan uga custaan waa keenay ina kala doontiin insha Allah in kana waxa waaye laagti waxay ugu caabiya dad badan la tartamo way aan fahanti so insha Allah video kiiskan ta gaarino nabadii